hereby declares that Ruto William Samoei has been duly elected as the President of the Republic of Kenya under the provisions of Article 138 of the Constitution in the presidential election held on 9th of day of August 2022. And I'll proceed to sign the certificate. Thank you very much. Asanteni sana. kulan waxaan wanaagsan idil ahaantiin baa meel walba joogtaan iyo si walba isra maqalkan idiin soo gaadhay ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah natiijada doorashada dalkani Kenya oo si rasmi loo shaaciyay iyo madaxweynaha dalkani uu yeelanayo haatan la shaaciyay laguna dhawaaqay waxaana halkaasi ka socdo buuq iyo waliba sawaxan ay wadaan kooxdii loo maleynayay inay ku guuleysan doonaan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda dalkani Kenya ay yeelanayso dhanka kalena waxaa la dareemayaa dhaqdhaqaaq iyo waliba culays ay bilaabeen kooxda laga guuleystay ra'iisul wasaarihii hore ee dalkani Kenya Raila Omolo Odinga oo ayagu haatan ugu arkay dariiqyada waaweyn ee magaalada Nairobi iyo waliba Kisumu Eldoret iyo waliba magaalooyinka waaweyn ee ayagu ay ku badan yihiin xaalad aad u adag oo la saadaalin karin oo ka taagan magaalada Nairobi ee dariiqyada waaweyn oo lagu arkayo dad aad iskugu soo xoomay kuwaasi oo loo maleynayo in ay ku hayb yihiin isla markaana ay taageero u hayeen xisbigii Azimio la Umoja oo loo maleynayay in ay ku guuleysan doonaan xilka madaxtinimada dalkani ugu sareyso haddaba maxay tahay maxaase isbedelay waxaana la arkayay guddiga doorashada ninka weyn Chebukate oo asagu Fed iyo waliba bud lala dhacay kaasi oo loo maleynayay in asagu wax isdabamarinta uu ka haddaba xisbiga Azimio maxaa la gudboon waxaynu soo gudbin doonaa codad iyo waliba muuqaalo aanu idinka soo duubnay kuwaasi oo haatan ay shaaciyeen baraha bulshadana si weyn la iskula dhaxwado qodobadaasi kuwa kale faahfaahsan ayaan halkan inagula wadaagi doonaa haddii ay tahay markaad kugu horeysay barnaamijka shishar garay oo gaarsiiya asxaabtiina kale barnaamijka waxay ugu heliyo saaxiibka Santaag oo isha ku hayay soona aruriyay qodobadii ugu dambeeyay ee doorashada lagu dhawaaqay iyo waliba cidda ku guuleysatay iyo haatan siyaabaha kala duwan ee dadka niyadooda ay ugu soo dhacayso guusha uu gaadhay madaxweyne ku-xigeenkii dalkani Kenya oo asagu ahaa xisbi mucaarada isla markaana si weyn uga soo horjeeday madaxweynihii hore ee dalkani Kenya aad iyo aad baad mahadsantahay wacne ummadda Soomaaliyeed waan salaamaynaa dalka Kenya qabanqaabadii iyo sidoo kale doorashadii iyo hardanka cuslaa ee soo mareen bilihii ugu dambeysay waa ay ku guuleysteen haddana waxaa lagu dhawaaqay natiijada rasmiga ee guddiga doorashooyinka oo muddaba ay qarinayeen isla markaana ay sheegayeen in ayagu ay og yihiin cidda ku guuleysatay kursiga madaxtinimada ee dalka Kenya waxaa si toos ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ama madaxa ugu sareeya guddiga doorashooyinka uu ku dhawaaqay cidda ku guuleysatay taasi oo uu sheegay in madaxweynihii ku-xigeenkii hore ee dalka Kenya William Ruto 10 sano ee ugu dambeeyayna siyaasadda halkaasi ka taagnaa oo halkaasi kaga jiray isla markaana si weyn uga soo horjeeday xisbigii isagu uu horay uga tirsanaa ee ahaa Jubilee isla markaana madaxweynaha dalka Kenya hadda xilka ka tagay uu hogaaminayay in si toos ah uu u guuleystay natiijadii ugu badnaydna isagu uu helay macdoodkii ugu badnaa uu helay waxa sidoo kale shacabka dalka Kenya iyo sidoo kale saamileyda siyaasadeedba ay si weyn isha ugu hayeen in uu ku guuleysan doono ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga hase ahaatee arintaasi waa ay banowday waxaana guusha ay maanta raacday xisbiga ODA ama UDA ee uu hogaaminayay gudoomiye madaxweyne ku-xigeenkii dalka Kenya William Ruto waxa sidoo kale iyadana goobtaasi ka dhacay inqilaab xoogan kadib markii gudoomiyaha maaragtay doorashooyinka uu ku dhawaaqay oo rabay inuu ku dhawaaqo halkaasi oo lagu feeray isla markaana ay feedeen xubno kamida xisbiga Azimio isla markaana ah xildhibaano laga soo doorto deegaanada ay ama qowmiyadaha ay degaan Masayda oo salato rag ka soo jeeda iyo Fed ku maaragtay xoogan ku dhuftaasi ahaatee oo muuse joojin arintaasi waana ku dhawaaqay arinta meesha iyadana aan ka marnayn waxay tahay in natiijooyinkii hordhac ahaa ee guddiga doorashooyinka hore ay u shaaciyeen in ay ka bedelnayd kuwa hadda ay ku dhawaaqeen taasi iyadana lagu eedeynayo in Abukate oo ah ninka Chebukate oo ninka ugu sareeya ah guddiga doorashooyinka ugu sareeya ah inuu isagu musuqmaasuq iyo sidoo kale isdabamarin ay ka dhaceen waxaan
iyadana aan xusid mudan in madaxweyne ama ra'iisul wasaare hore dalka Kenya oo la tartamaya ninka hadda guushiisa lagu dhawaaqay in uusan goobta imaanin oo uu diiday inuu imaado kadib markuu dareemay in isdabamarin iyo sidoo kale hawlo xun ay meesha ka socdaan dhinaca kale madaxweynaha hadda talada ka degaya Uhuru Kenyatta ayaa isagana ku tilmaamay arintaasi in wax la qaadan karin ay tahay oo Chebukati oo hadda doorashada hogaaminayay oo khiyaano u degay taasi oo iyagu ay horay ugu soo wada hadleen baa la yiri in Chebukati iyo sidoo kale madaxweynaha hadda xilka ka degaya Uhuru Kenyatta ay si toos u wada hadleen ayna ku wada hadleen natiijada rasmiga in lagu dhawaaqo ahayd in loogu dhawaaqo ra'iisul wasaare hore dalka Kenya Raila Odinga oo hadda laga guuleystay dhinaca kale Maxamedow sawaxan ayaa mar isla hal mar hareeyay kadib markii lagu dhawaaqay magaalada Nairobi xaafadaheeda iyo sidoo kale wadooyinka waaweyn ee magaalada Nairobi dad aad u tiro badan ayaa qaadaya kuwaas oo ujeedkoodana aan la garanaynin qaarkood ay dhagxaanta tuurayaan moodid in maarta hoogoodii uu galay iyo ba'oodii uu galay sidaan wada ognahay magaalada Nairobi waxaa ku badan taageerayaasha ninka laga guuleystay Raila Odinga iyo sidoo kale madaxweynihii hore hadda xilka ka degay Uhuru Kenyatta taasi oo caqabad weyn noqon doonta hadii aan la keenin xal lagaga hortagi karo rabshadaha dadkaasi ay sameeyaan aad iyo aad sidoo kale tan haatan war soo dhacay waxay sheegayaan inay risaas si toos uga bilaabatay xaruntii dhexe ee Bomas ee lagu shaaciyay natiijada kama dambaysta ee madaxweynaha dalkan Kenya Santiago marba hadii doorashadii la filayay inuu ku guuleysto xisbiga Azimio gabi ahaan baa lagaga guuleystay ayna tahay taariikhda markii koobaad ee xisbi mucaarada uu dalkan Kenya noqonayo ama madaxweyne uu kaga guuleysanayo uu noqonayo bal arrintan maxay ku dambeyn doontaa doorashada laba xaal ayaa meeshan u muuqato horta xisbigan aad ku guuleystay UDA uu hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka ama dhaxle madaxweyne ku-xigeenka William Ruto 10 sano ee siyaasadda uu ku jiray saameyn xoogan ayuu ku lahaa gudaha dalka Kenya mid kale ninkani waa ninka dajiyay jartii 2017 ay ku soo laabteen isaga iyo saaxiibkiisa ay kala tageen ee ah madaxweynaha hadda xilka ka degaya Uhuru Kenyatta waxa sidoo kale ninkani uu dajiyay baa leeydi daatooyinka hadda lagu shaqeynayo systemka hadda lagu shaqeynayo ninkii dajiyay iyadana weeyaan marka ninkani horeyba waa looga shig qabay in uu sameyn karo wax isdabamarin waxaa sidoo kale intan iyo intii tirinta codadka ay socotay wuxuu ay soo galeen saraakiil isaga ka amar qaadata ay la soo galeen kombiyuutar goobta taasi oo gabi ahaanba laga hortagay oo iyadana aan u noqonin sidii ay rabeen sida isaga uba diyaarsaday ee horeyba uu u diyaarsaday ninkani William Ruto waxa weeyaan la yiri inuu isagu doonayay inaysan ninkan baysa soo gaarinba oo mar horeba xaaladda lagu kala tago oo dhowr iyo 10 milyan ba uu hor dhaafo sababtoo ninkani waa nin expert dhinaca xatooyada iyo sidoo kale isdabamarintana khibrad dheer u leh markii ay ka faalloonayaan dadka xaaladiisa sida tooska ula socday og ama faalayaasha siyaasadda dalka Kenya gabi ahaanba marka tani hadda ma aha mid lala yaabay yahay dad badan ayaa arintani qabay mid labaad waxa la leeyahay hadii laga guuleysan lahaa oo isaga laga guuleysan lahaa oo Raila Odinga oo loogu dhawaaqi lahaa codkana iyadana caqabadaha dalka Kenya iyo dagaalkiisa horimaadku waa uu ka badan lahaa la leeyahay sababtoo ah la leeyahay Raila Odinga wuxuu soo tartamay in ka badan 7 mar ayuu soo tartamay oo laga guuleysto laga shubtay isaga oo shacabku ay si weyn ugu helayeen haase ahaatee wuxuu la qabsaday baa la leeyahay ka shubashada iyo ka guuleysashadaba waa uu la soo qabsaday baa la leeyahay waa nin odaya oo xaaladaasi la qabsaday taasi darteedna ninkani ayaa ka saameyn badan baa la leeyahay xaaladaha amniga iyo sidoo kale isbedelka dalka Kenya ba in maaragtay guul hadii qof ay raacayso waxa ku haboon baa la leeyahay odaygani muddada badan soo tartamayay ee laga guuleysanayo aad iyo aad haatan dadka qaar waxa ay sheegayaan marba hadii laga guuleystay ra'iisul wasaare hore dalkan Kenya Raila Odinga xaalku ma sahlano oo doorashadu waxay ugu dambeyn ku biyo shuban doontaa in lagu celiyo xilka madaxtinimada balaarinkaasi maxaad ka leedahay waxana way dhici kartaa wadankan dawlado badan iyo sidoo kale dawlado waaweyn ayaa isha ku haya oo looma ogola marna inqilaab inuu dhaco waad ogtahay 2007 inqilaabkii dhacay dhibaatadii uu geystay iyo sidoo kale mas'uuliyiintii sarsare dhibkii uu ku yeeshay maxkamadda adduunka ugu sareysa in looga yeeray heeg isla markaana ay sidii uga laguxi lahaayeen ay adkaatay marka waa wax dhici kara in lagu celiyo balse hadda uma muuqato sababtoo ah ninkan hadda la tartamaya ee William Ruto waa nin mar waliba istiraatiijiyada uu dheelahayo ka horeyso kuwa kale mid ay dheelayaan sababtoo ah sistemo badan oo dalka Kenya maanta ka shaqeeya isla markaana ayuu asaga hirgeliya marka waa nin aad khatartiisu ay u badan tahay umana malaynay hadii lagu celiyo xataa in laga guuleysan karo aad iyo aad hadii aynu eegno waxyaabaha ka dhalan karo hadii xataa lagu celin waayo doorashada oo sidan ba lagu dhaafo xisbiga Azimio oo ahaa xisbigii talada hayay
iyo dhammaanba haatan dadka laga cabsi qabo inay kasoo baxaan. Hadda waxaan ognahay xaafadda Soomaalidu ay badan tahay islii waxaa hareeraha ka jiro Kibera iyo xaafadda kaleeto Ande Kibera iyo xaafadda kaleeto la yiraahdo Madare, waxaana ku nool dadka ugu badan magaalada Nairobi, waxayna isku hayb yihiin ama taageero u yihiin ra'iisul wasaarihii hore ee dalkan Kenya Raila Amolo Odinga. Maxay tahay arrinta laga filan kara iyaga? horta mar waliba Soomaalidu tensionkoodu waa uu kacsan yahay. Hadda magaalada Nairobi xaaladeeda waad arkaysaa, businesskani waa xiran yahay, meel walba oo shaqaynaysa waa xiran tahay, dadku guryahooda ayay ku sugan yihiin, qaar Northeastern ayay ku maqan yihiin, ciyaalo waa la raray iyaga naftirkooda Northeastern baa loo raray. khatar way ka imaan kartaa, laakiin dadku way feejigan yihiin. Dowladda naftirkeeda iyo sidoo kale xildhibaanka laga soo dorto Kamakuji ee Soomaaliga, isaga naftigiisa Yusuf Xasan, isaga naftigiisa aad buu uga diyaar garoobay. ciidamadii ugu badnaa ayaa loo diyaariyay xaafadda Islii in maaragtay xaafadan ku hareeraysan laga hortago. Doorashadu hadda uguma horeysa la iskaga shubto oo laga guuleysto mid kamid ah raggii tartamayay oo la soo kala guuleysan jiray. caqabadihii hore u jiray oo kale unbaa iyada naftirkeeda baan ka imaan karaa, balse dadku aad bay u walwalsan yihiin oo maaragtay uga cabsi qabaan in xaafadahaasi dadka ku dhaqan ee madowga ay dhibaato mar waliba ka geysan karaan xaafadda Islii oo si weyn xaafadani aad ogtahay hanti badan ay taalo, dad Soomaaliyeed oo aad u tiro badan ay ku nool yihiin. aad iyo aad dhanka kaleeto xarunta dhexe ee codadka lagu tirinayay waxaa weli ka socda buuq iyo sawaxan iyo weliba rasaas lagu kala fiijinayo dadkii ajentiyada ahaa ee halkaasi ku sugnaa oo iyagu filayay in natiijadu ay sidan ka bedelaan karto. dhanka kaleeto waxaa warar ka soo saaray korjoogtadii caalamiga ahayd oo ayagana qeexay wax rasmiga ah halkaasi ka jiro. bal maxay tahay walaaca laga qabo in doorashada lagu shubto? doorashadan hadda hore u sheegnayba ninkani William Ruto la yiraahdo waa nin systematic aad ugu horeeya, aadna bright oo maaragtay ka wada maskax badan hadda raggan kii xilka sii sarnay iyo kan kaleetaba. dalka Kenya sistemadii ugu dambeeyay 2013 wixii ka dambeeyay ninka hogaaminayay ee mar waliba dalka wax ku soo kordhinaya ayuu ahaa. dhinaca xatooyada iyo isdabamarinta waa nin waxaa la yidhi number 1 aba la yidhi oo qof uu taageeray ma guuleysan waayin ayay dhahaan. marka waxa maanta marka la fili karo waxaa weeye in ay qilqeeliyaan xisbiga Azimio oo markaasi ay dhahaan waa lagu shubtay, kadibna doorashadii ama goobjoogayaashii ama dibba loo tiriyo oo xisaabaad dib loo sameeyo. taasi ayaana markaasi noqonaysa resultiga saxda iyo wixii kasoo baxaan dib ka ogaan doonaa. dhinaca kale rabshadahan iyo waxa bilowdayna iyaga naftirkooda hadda lagama hor dhici karo oo xaaladda dalka Kenya waa la markii horeba waa la filayay in uu dhici karo rabshadana ay dhici karaan, dadka taageerayaasha naftirkooda ay isku gacan saar karaan. marka waxaan ku eegi doonaa wararkeena dambe ayaan eegi doonaa wixii bal ka soo kordha xaaladda dalka Kenya iyo sidoo kale xisbigan wixii ay ka dhahaan guusha hadda raacday William Ruto oo ahaa madaxweynihii hore ee madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka Kenya 10 sano la soo dhaafay. dabadayaal aad iyo aad baad mahadsantihiin. waxaana ku hawlanahay sidii aynu kusoo dhegdhegayn lahayn wararkii ugu dambeeyey ee ka socda xarunta dhexe ee Bomas iyo weliba guud ahaan rabshadahan haatan bilowday ee ka socda magaalada Nairobi. waxaan sidoo kaleeto la socon doonaa wax kasta oo haatan ka dhacaya gudaha dalkani Kenya, halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa. guud ahaanna intaasi ayaanu kusoo koobaynaa war waxaan dal iyo dibadba idinka haynay iyo weliba wararka dalka Kenya. intaan warkan warkayga ku kulmi doono waxaan inaga tegayaa sidaas iyo amaanaad.